daawada qaybta saddexaad wararka wacala dhinaca dunaasada dunida waa mar kale wararka ugu dambeeyay dunida waa 30 bishii June 2021 daawadayaal barnaamijkeena xulashada dunida xiisa badan leh ayaa inoo soo socday inuu soo maqan ama wadada ku soo hayatay eebayd daawadayaal aan ku siqo wararka wacala dhinaca dunida markaana ku bilaabo daawadashana qiimaha badan ee madaxweynaha dalka Tanzania gabadha la yiraahdo Samia Suluhu Hassan ayaa waxaa lagu eedeeyay inay raacday dhabooyinkii uu jeexay madaxweynihii talada ka dhintay John Magufuli qaar ka mid ah xisbiyada caanka xisbiyada ugu weyn dalkaasi ayaa waxay ku tilmaameen haweeneyda Samia in ay raacday wadooyinka kaknaa ee siyaasadii qalafsaneed ee Mr Magufuli Tundu Lissu oo asagoo markaasi ka hadlayay ama ka falcelinayay khudbadii ay jeedisay Suluhu boqolkii maalmood ee xafiiska ay ku sugnayd ugu horeeyay waxay qabatay ayaa ku eedeeyay in dawladeedu aysan la imaanin haba yaraatee qadiyad cusub iyo hogaamin cusub balse ay raacday dhabihii uu jeexay Mr Magufuli wuxuu yiri kadib markii ay sheegtay inaysan doonayn in dastuurka la furo oo arrimaha dastuurka laga hadlo iyo sidoo kale inay diiday in aysan jiri doonin isku soo baxyo ka dhaca deegaanada uusan qofku ka doonayn kursiga sanahan qofku deegaan doorashadiisa deegaan aan hayn kuma qaban karo olole siyaasadeed taa macnaheedu waxa weeye qofka u sharaxan xilka madaxtinimada ugu sareeya ee madaxweynaha kuma khasbana wuxuu ku khasban yahay inuu magaalooyinka dhan tago magaaladu ku dhashay ee gobolka soo jeediyay gobolada kaleba ilaa codka ayuu ka wada doonaya dadka muwaadiniinta sidoo waxay sheegtay inay arintaas la mamnuucay oo la joojinayo qof walbana uu ku ekaa doono tuuladiisa iyo deegaanada uu ka yimid taasoo ay loo arkay qalafsanaan iyo kaknaan adag sidoo kalena waxay meesha ka saartay inay arrinta dastuurka furayso waxayna ku sifaysay in dastuur hadeerta la furaa dalkan aysan u fiicnayn waxa dalkan laga hadlo ee ugu wanaagsan ay tahay dhaqaalaha kobcintiisa dawladeeduna ay diiradda saari doonto kobcinta dhaqaalaha balse aysan diiradda saari doonin dastuur cusub oo qarash cusub in la geliyo iyo arrimo noocaas la geliyo Mr Tundu Lissu wuxuu yiri Samia Suluhu Hassan ugu dambeyn waxay soo bandhigtay wajigeeda rasmiga ayuu yiri ayuu yiri inay la shirtimid ayuu yiri wuxuu ku sifeeyay Magufulism oo ula jeedo siyaasadii John Magufuli isagoo aan joogin buu meesha oo macnaha maqan waana waxaan la aqbali karin buu wuxuu yiri ma awoodno mana yeeli doono mana aqbali doono in ay leeytmaado ayuu yiri waxyaalo aan dastuuri ahayn oo mamnuucitaana sida dhaqdhaqaaqa arrimaha siyaasadda oo ay ku soo rogtay arrimo markaasi kali talisnimo ah ayuu yiri wuxuu yiri waa in ay sida ugu dhaqsaha badan arintaasi ay uga noqotaa iyo dadka qaarkoodna sidoo kale ku baaqeen wuxuuna sheegay in ay tahay in arintaasi ka noqoto oo si weyn looga soo horjeesto si kastaba noqotay khilaafka siyaasadeed ee goboladas hadda lagu furay ayaa la sheegay inay timid kadib markii hadallada adag ee ka soo baxay iyadana ay u ekaatay naagaan cidna way joojinayeen dalka Ethiopia dagaal culus oo dhinaca waqooyi dalka ka dhacay ugu dambeynna magaalada caasimadda ahayd Mekelle waxa gacanta ku dhigay kooxaha Tigray ama kooxda loo yaqaano the People's Liberation Front Tigray People's qolada loo yaqaano markaasi TPLF ayaa gacanta ku dhigtay ama loo yaqaano Tigray People's Liberation Front TPLF sida wakaalada wararka Reuters ay sheegaysana magaalada gabi ahaanteedba way isku wareejiyeen afayeenkooda oo kala xiriiray telefoonka dhinaca dayax-gacmeedka lagu hadlay ee loo yaqaano Traya ayaa Kichawreda afayeenka kooxda waxa uu sheegay in ay magaalada oo dhan ay gacanta ku hayaan dawladda ayaa sidoo kale ku raacday maamulka kumeel gaarka ee Tigray-ga in xabad joojin la sameeyo dawladda ayaa tafaasiil dheeraad ah ka soo qortay arrinta xabad joojinta waxayna sheegtay in inta xilligan gorashada dalagga lagu guda jiro ay xabadjadu sii socod doonto walow ay hal dhinac kaliya xabadjadu ay dawladda ayadu ay ku dhawaaqday hase yeeshee waxa loo arkaa in arrintan ay tahay arrin ay dawladdu isku abaabulayso ama se arrin ay doonayso inay soo gacan banaanaato gaar ahaan marka ra'iisul wasaaraha doorashadiisa lagu dhawaaqo taasoo u eg ayaa la yidhi mid markaasi siinaysa sharciyad uu gacmaha kaga guro xubnahaasi dhanka kale ciidamada dalka Eritrea oo la sheegay in agagaarka magaalada markii hore ku sugnaayeen ayaa la sheegay inay bilaabeen inay dib uga baxaan gaar ahaan magaalada Shire iyo goobo kale ayaa la arkayay ciidamadu ay ka baxayaan wararku waxay sheegayaan in ciidamada Eritrea ay dib isugu gurteen agagooda isla markaana ay baneeyeen gabi ahaanba goobihii ay ka sugnaayeen dalka gobolkaasi arrintaas oo jirtana qiimaha leh
waxaa iyaguna dhinaca kale adduunka dhibaatooyinka ka jira kamida bariga dhexe tusaale ahaan dalka Lubnaan oo kale waxaa jira dhibaato xoogan oo dalkaasi ka jirta dad badan horta waxay ku wareersan yihiin dalka Lubnaan dhibaatadan haysata dhibaatadan dhaqaale khilaafkan siyaasadeed dhibkan ka jira wuxuu u baahan yahay barnaamij gaar ah dalkaas buu mudan yahay laga diyaariyo dowlad la'aanta waa maxay ra'iisul wasaarahan astaysan muddada 6 bilood ah ilaa hadeerto aan golo wasiir dhisi karin maxaa la isku hayaa yaasa ka dambeeya mashisheeye ma ku lug leeyahay sokeeyaha see loo kala qaybiyay qadiyada dalkaasi ka taagan runtii waa arrin aad iyo aad ugu dhow waxyaalaha Soomaaliya ka jira marka mar baynu barnaamij horta ka diyaari doonaa hadda warbixintan kaga kaaftoomayna sidaa daraadeed dadka dalkaasi ku dhaqan ayaa wadooyinka dhan xiray kadib markii maciishadu cirka isku shareertay gabi ahaanbana uu yaraaday xilliga korontada la helayo sidoo kale dhibaato weyn ee ka timid dhinaca shidaalka gaar ahaan tan cunto lagu karsado gaasta dabiiciga la yiraahdo dadka ayaana wadooyinka waaweyn ee magaalada Beirut xarun dalkaasi wada xiray dalka Ciraaq oo noqday dalka kaliya hadarta sida weyn uga caawiya arrintaasi ayaa haddana uusan ku filayn dal dhan inuu dalqoodiyo waliba dal isaguna iska baaba'san oo dhibaatooyin haystaan Ciraaq lafteeda wadooyinka ayaa la arkay iyadoo dab la qabatiyay sidoo kalena wakaalada wararka AFP ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in wadooyinka waaweyn badankooda oo dhan ay xirmeen dadku waxay codsanayaan oo ay dalbanayaan in noloshooda laga qaado cunaqabataynta ay saareen dadkoodu isku tagga Imaaraadka Carabta waxaa gaaray wasiirkii ugu horeeyay ee arrimaha dabadeed ee Israa'iili ah ee dalalka Khaliijka lugdhiga waxaana ay tani timid kadib markii ay sheegeen inay dadajinayaan isku soo dhawaanshaha Israa'iil iyo dalalka Carabeed ee ayagu heshiiska la galay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid ayaa gaaray magaalada caasimadda ee Abu Dhabi halkaas oo la soo dhaweeyay barta Twitter-ka ayaa dabaaldeg weyn waxaa ka qabsaday dadka sida weyn ugu dooda qadiyadda Israa'iil kuwaas oo isla wadaagayay muuqaalada yaryar ee la soo galgalinayay wasiirka diyaaradda soo ay dul marayso magaalada isla markaana ay cagaha ku dhaweynayso goobta gegida diyaaradaha ay doonayso inay ku dul degto iyo safafka dhaadheer loo galay soo dhaweyntiisa arrintan waxay u muuqataa ayaa la yidhi mid muujinaysa arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay wax lagu safeeyay isbedelka dhinaca dalalka Carabeed ee ka yimid Mareykanka ayaa si dhawaan sheegay in aysan ku bedelanaynin heshiisyada Carabtu sida fardiga ay galayaan Israa'iil in la heshiisiyo Falastiin iyo Israa'iil Turkiga iyo Itaaliya waxa ay ku heshiiyeen inay ka wada shaqeeyaan dhowr arrimood oo waaweyn inkastoo labada dal siyaasad ahaan bariyay ugu dambeeyay dhan ay hayeen labada dal ay isugu dhow dhinaca marka ay noqoto badda Mediterranean-ka dalalka ku teedsan ayaa haatan waxa la sheegay in labada wasiir arrimaha dabadeed ee labada dal ay ku heshiiyeen arrimo waaweyn oo ka mid tahay in ay ka wada hadlaan in ay wajahaan qadiyada ka imaanaysa dalka Liibiya oo labada dalba ay ka leeyihiin istiraatiijiyad dalka Talyaaniga oo kale istiraatiijiyad aad u weyn ayuu ka leeyahay Liibiya waayo waxa xeebaha dalkaasi ka soo fataha kumanaan qof oo magaalada doona kuwaas oo Talyaaniga ka dhigta meel ay ku sinastaan ka hor intaysan dalalka kale Yurub ee dhaqaalahoodu uu ladan yahay aysan u sii gudbin halka Turkiga oo halkaasi ku leeyahay maalgashi iyo sidoo kale ciidamada Talyaano heer sare ah dawladdan uu gacan saar dhow leeyahay waxay sheegeen in qadiyadaasi labada dal ay masaka noqdeen kana wada shaqeyn doonaan sidoo kale waxay sheegeen in dagaalanka kooxda la yiraahdo Daesh ay iska caabintooda ay arrimaha la soo qaaday kamid tahay dhanka kale dawladda dalka Talyaaniga ayaa waxay sheegtay iyo Turkiguba in maalmihii adkaa ee dalka Talyaaniga wajahay kadib markii xanuunka faafaha daran ee COVID-19 uu dhulka ku jiiday Turkigu kamid ah dalalkii safka hore u soo galay inay caawimaan Kafs Oglu wasiirka arrimaha dibadda Maflud Kafs Oglu la hadlayay wakaalada ama wargeyska la yiraahdo Italian Il Messaggero ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in cilaaqaadka labada dal ay sii nagaadaan tan iyo inta ay dalalku ka arkayaan isbedel xoogan oo ay ka sameeyaan arrimaha ay ka wada shaqeynayaan dalka Faransiiska iyo Turkiga ayaa iyagu kala naf qaaday arrinta dalka Liibiya kadib markii dalka Turkigu uu kaga tirtirnaaday Faransiiska taasi waxay geysisay Faransiisku in uu dagaal dhinaca afka ah uu ku qaado islaamka oo dhan markii dambana waxa ay ku baandaysteen daro kadib markii dawladda dalka Faransiisku ay sheegtay inay xabajoojin dhinaca afka ah ay la gaadhay oo ah in hadallada kulkul la iska daayo ayaa la yiri qadiyadaas dabashana qiimaha badan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda wararka ugu dambeeyay ee marba ka imaanaya arrimaha gobolka Tigreega oo dawladda Eritrea ay dhawaan sheegtay Tigreega inay caawinayaan dalalka reer galbeedku ma sidaasa iyo arrimo kale iyo dagaalkii markaas qararaay halkaas ka dhacay ee laga buriyay ciidamadii dawladda ama lagaga qabsaday deegaanadii ugu badnaa iyo magaaladii caasimadda Maqale oo hadartan la sheegayo in xataa deegaano hor leh qabsadeen oo gobolka ka tirsan xabad joojinta ay dawladdu dhinaceeda ay kaliya ku dhawaaqdayna aysan ilaa hadda wax jawaab celin kooxda aysan ka soo celin taasoo muujinaysa in ay dawladda dalka Ethiopia ay doonayso in ay istiyaariso
oo dabcan ay istiyaasa sidoo kalena waxaa la yaab leh in aysan hadda ilaa hadda xitaa dalalka reer galbeedku aysan soo dhaweynin xabad joojinta dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday taasoo muujinaysa in markay nabad noqoto aysan kala cadayn mowqifka ay qaadanayaan reer galbeedku laakiin dad badan ayaa aaminsan in dowladaha reer galbeedku ay dowladda Ethiopia iyagu ka codsadeen marka hore inay talaabadaas samayso iyo sidoo kale inay suuragal noqon karto xataa inay dabcan wada hadallo waaweyn yeeshaan oo iyaduna ay suuragal tahay way arki doonaa wararka mar walba wararka gudaha dunida meel walba iyo gees kasta amaan Allah